taariikhdoodu way dahsoon tahay badidooduna waxay u qaxeen iyagoo ka cabsi qaba in la xasuuqo. Maantana waxaa ka hadhay tiro kooban oo tobaneeya. Yuhuudda Yemen haybta farakutiriska ee gacanka cadmeed degan, xididada iyo asalka loo minguuriyo. Sheekooyinka qaar waxay soo gudbiyaan in xilligii boqor Suleymaan oo ka tirsanaa boqortooyadii Israa'iil uu soo diray dhulka Yemen ganacsato Yuhuuda. Tiro badan oo ka mid ah dadkaasi waxay deegaan ka dhigteen dhulkaas, halka sheekooyin kalena ay soo gudbiyaan in Yuhuuddu soo degtay dhulka Yemen sanadkii 1951 Nabi Ciise ka hor. Inkastoo qaar ka mid ah taariikhyahanadu ay tilmaamaan joogitaanka Yuhuudda ee dhulka Yemen inuu bilaabmay qarnigii 6aad ee Nabi Ciise hortii, si gaarana waxay diiradda u saaraan deegaanadii ugu horreeyay ay soo caga dhigteen. waxaana ay ahayd bariga Yemen gaar ahaan gobolka Xadramowt. iyadoo laga nimbiil qaadanayo sheekooyinkaas haddana weli lama sugin xilliga ay Yuhuuddu timid dhulka Yemen. taariikhdooduna waxay tahay mid qarsoodi oo muran badan dhalisay, balse waxaa la aaminsan yahay in islaamka ka hor dhulkan ay soo degeen. markii islaamku soo gaadhay dhulka Yemenna waxaa loola dhaqmay sida dadka haysta diinta Kiristanka, waxaana loo ogolaaday cibaadooyinkooda iyo habdhaqanadooda u goonida. markii ay xaaladuhu isbedeleen hanaankii dowladnimo iyo habdhaqankii bulshaduna la jaanqaaday caalamka, waxay Yuhuuddan tirada yar la kulmeen haybsooc iyo xaqiraad bulshadu kula kacday, balse waxay ku mayeeladkaadeen joogitaanka deegaanada ay ku barbaareen waqtiga dheer ilaa ay maamulada la wareegeen kooxo u ololeeya diinta islaamka. qadiyadda Yuhuuddana raba inay xididada u siibaan, taasina waxay ku kaliftay inay qaab dhuumasho ugu noolaadaan Yemen, mararka qaarna ay ka qaxaan deegaano ay ku noolaan jireen. qiimayntii la sameeyay sanadadii u dambeysayna waxay noqotay tiradoodu ilaa 50,000 oo qoys oo gudaha Yemen ku nool. u barakicii Israa'iil waxa uu bilaabmay hayaankii Yuhuudda Yemen ee dhulka Israa'iil qasabka kaga haysato Falastiiniyiinta sanadkii 1881. duruuftii qalafsanayd ee soo wajahday darteed ayaa ku kaliftay dadkan inay iskaga haajiraan dhulkii hore looga heli jiray. hanaanka sahaynada oo xilligaasi taag darnaa haddana waxay u taag heleen in Yuhuudda qasab loogu yagleelo dhul ay ka helaan bariga dhexe ay salahaan degi jireen, si ay Yuhuuddu ugu dhiirato inay u hayaamaan magaalada Qudus iyo agagaarkeeda. waxay madaxdii sahaynadu alifeen sheekafaneed tilmaamaysa in qiblada Qudus ay malab da'ayso marka ay Yuhuuddu tagaan halkaas. tiro badan oo dadkan ka mid ah ayaa u hayaamay goobta barakaysan ee masaajidka Qudus ku yaallo intii u dhaxaysay sanadkii 1881 ilaa 1914, waxaana la diiwaan geliyay qaxoonti xad dhaaf ah. markii la gaadhay 29 Noofembar sanadkii 1947, waxaa jamciyadda ka dhaxaysa qaramada midoobay ay codeysay in dhulka Falastiiniyiinta la kala qaybiyo. waagaas waxaa dhulka Carbeed ka dhacay banaanbaxyo lagaga soo horjeedo fikraddaas. sidoo kale meelaha ay dibadbaxyadu ka dhaceen waxaa ka mid ahayd Yemen oo kumanaan Yuhuud ay ku noolaayeen xilligaas, iyadoo loo geystay jirdil iyo faquuq kalifay inay isku dhacyo ka dhex aloosmaan bulshada Yemen, ayna sababaan dhimashada 82 qof oo Yuhuud ah, 67 dhaawaca, gubidda 220 guri, baabi'inta goobo lagu cibaadaysto, iyo dugsiyo la dhisay sanadkii 1924 oo Yuhuuddu ay iska lahayd. xilligaasi waxaa madaxdii sahaynadu daahfureen qorshe qarsoodi oo bulshada Yuhuudda lagaga soo qixinayo dhulka Yemen. howlgalkaasna waxay ugu magac dareen Operation Marje Karbad, waxaanay ku guuleysteen 49,000 oo Yuhuuda ka soo daabulaan dhulka Yemen intii u dhaxaysay sanadadii 1949 ilaa 1950, iyagoo u soo raraya Israa'iisha cusub. waxaana gacan ka siiyay howlgalkan dowladaha Ingiriiska, Mareykanka. dhaqaalaha ku baxayna waxa uu noqday $425 milyan. halgankan waxaa la ogaaday markii uu gabagabo noqday kadib 380 duulimaad oo lagu daadgureeyay dadkan. barakicii ugu dambeeyay la diiwaan geliyay waxa uu ahaa sanadkii 2016, kadib xaaladda Yemen oo faraha ka baxday iyo Xuutiyiinta oo joogooyinka ugu sarreeyay talada dalka Yemen la wareegay sanadii 2014, iyadoo halkudhigooduna yahay dhimashada Mareykanka, dhimashada Israa'iil. heshiisyo qarsoodi oo dhex maray Israa'iil iyo Xuutiyiinta ayaa telefishinada Carabta soo bandhigeen sida loo raray Yuhuuddii Yemen baaqiga ku ahayd. maanta waxaa la tilmaamaa in wax ka yar 50 Yuhuud ay ku nool yihiin deegaano loo dalxiis tago oo hoos yimaada Sanca, waxaanay la nool yihiin duruufo maciishadooda oo liidata, mana haystaan goobo ay ku cibaadaystaan iyo toltoonna. waxaanay dafiraan inay ka qaxaan arladan iyagoo aaminsan halkan inay tahay dhulkooda hooyo, awowayaashoodii horena ay kaga tageen halkan. haddaba muxuu yahay masiirka Yuhuudda Yemen ku nool?